shirkadda xidig waxa ay ka mid tahay shirkadaha ganacsi ee wax soo saar kuna yaala Puntland waxaana la asaasay bishii Juun sanadii 2003 waxayna caan ku tahay shirkadaasi wax soo saarka qalabka badda iyo noocyo kale oo ay soo saarto ka hor inta aan la hawlgelin shirkadda agabka badda ee xidig waxay mas'uuliyiinta shirkadaasi qalabka kalluumaysatada ay ka keeni jireen wadamada Soomaaliya ay xiriirka ganacsi ay leeyihiin kalluumaysatada deegaanada Puntland iyo gobolada kale ee dalka horey waxa uu haystay dhibaato ay ka mid yihiin dayactir la'aan qalabkooda haysata balse asaaskii shirkadda ayaa timi kadib markii la ogaaday in dalku u baahan yahay warshad gacan siisa dhiirigelisa kalluumaysatada dalka sida uu sheegay maamulaha shirkadaasi xidig Xuseen Daahir Afrax oo umurtaasi xog dheeraad ah naga siiyay shirkaddan waxa la asaasay 2003 bishii Juun waxaanu ku timid waagii hore waxaanu ka shaqayn jirnay badda kalluumaysiga oo ama kalluunka aragoostada iyo wixii la xiriira marka baahi waxa jirtay dadka kalluumaysatada mar walba ay u baahan yihiin qalabka badda sida doonyaha oo kale marka waxaan sameyn jirnay waagii hore waxaan ka banaanka uga keeni jirnay doonyaha ay ku kalluumaystaan kalluumaysigu kalluumaysatadu banaankaanu ka keeni jirnay kadib baanu waxaanu fikirnay inaan waxa la yidhi saxaabadaada looga dhigay inaan anagu aasaasno warshad soo saarta doonyaha iyo qalab kale oo badda oo sida iceboxyada iyo maxaan ku idhaahaa haamaha iyo wixii la xiriira shirkadda agabka badda ee xidig waxa ka howlgala shaqaale kala duwan oo aqoon durugsan u leh samaynta doonyaha kalluumaysiga waana mid wax weyn ka bedeshay muuqaalkii hore ee dhanka baahida kalluumaysatada dalka Soomaaliya oo dhibaatooyin kala duwan agabkaasi baahi weyn ugu qabay wax soo saarka qalabka kalluumaysiga ee shirkadda xidig waxa meesha ay ka saartay dalabkii badnaa ee dhanka dibadda waana mid bulshada Soomaaliyeed tusaale u noqon karta ka hawlgelinta warshadaha dalku in laga kaaftoomi karo dalabkii warshadaha shisheeye iyo dhaqaalihii dalka ka bixi jiray in uu dib dalka ugu soo laabto boqolkiiba wax doona oo dibadda laga keenaa ma jirto hadda wax doona lagama keeno wax alla waxay u baahdeen kalluumaysatadii annaga ka haqabtiray ma garatay marka waa kaga nasteen waagii hore inta la dilaa badii baa xiran xaggii markaas qofkii wuxuu sugayaa mararka qaarkood sanad ku qaadan kartaa hadday kaa jabto meelad ku dayactiraysa male hadda waxaa ka badan inta aan sameynay intaan dayactirno tii wax soo noqota waa naloo keenaa waa u dayactirnaa mid motor baa la keensanaya waa u saaraynaa wax rinji waa kuwa iyagoo kala go-an naloo keenay oo doonihii hore oo baaliga ahaa iyagoo kala go-an markaasaan sta isku kabnay doon cusub oo hadda soo baxday oo kale ka dhignay marka dadkii way ka raysteen doon in dibadda laga dirsado dalabka kalluumaysatada ee ah in doon loo sameeyo waa mid muddo kooban ku qaadanaysa shaqaalaha shirkadaasi xidig taasina waxa ay dhiirigelisay kalluumaysatada dalka oo ah in baahidooda qalabka baddu ay heli karaan hadda waqtiga ay dakhli lacageed helaan in loo sameeyo waa sax weeye kuwa yaryar waxay ku waxaynu u qaadataa inaan soo saaro 2 maalmood baan ku soo saaraa kuwa yaryar ma fahamtay waagii hadda sunaadu dhacday oo aad maartay dalabka u badnaa maalin walba xabad baan soo saari jirnay ama 2 xabo taanu muulasha ka badinay oo 2 muul ka dhignay yaan maalin kasta 2 af dheer aan soo saari jirnay maalin walba waxaan soo saari jirnay 2 maalmoodba waxaan soo saari jirnay hal volva niyarat marka kadib baa la qalabaynaya marka volvuhu waxa kaga duwan tahay markii banaanka loo soo saaro godka ka soo baxdo waa la qalabeeyaa waa la isku xiraa waa motorka dhaxda loo saaraa adoo marka ilaa waxaanu shaqaale xoog lahan keensanay oo 7 bari ay badda ku gali karto midaan waaweyn tan kalena 2 maalmood bay ku galaysaa badda iyadoo waxa weeye markaan dhisno motorka dabada laga saarayaa khalaas hore u dhaqaaji weeye tan iyo markii meesha ay ka baxday dawladda dhexe iyo awoodii ciidan marba marka ka dambaysa waxaa soo baxayay boobka qaawan ee wadamada shisheeye ee awoodda military leh ay ku hayaan biyaha Soomaaliya
boobka dhanka badda waxa uu saameyn xoog leh ku yeeshay wax soo saarkii kalluumaysatada dalka taasina waa mid dhanka kale saameyn ku yeelatay shaqadii iyo dhaqdhaqaaqii wax soo saarka shirkadda xidig oo ah mid ku xiran kalluumaysatada dalka iyo hadba siday wax u soo saaraan waa ku yeelatay waana saamaysay sababta waxa weeye annagu baddaasaanu nimanka kalluumaysatada ku xirannahayo maalintii ay carradu aaran u noqoto oo ay kalluun fiican helaanna waxbay naga qaataan naga dalbadaan markay wax waayaanna dee ayagaa waa waray yidhaaho oo waxba ma qaadanayaan xataa doontii ma dayactiran karo xataa maarata shidaalkii ma heli karo marka waxba nagama dalbanayaan marka annaga iyo kalluumaysatada waa isku xiranna kalluumaysatada markii ay kalluun fiican hesho suuqa warshaduna waa fiicnaanaya markii kalluumaysatadu ay xaal ku xumaadana annagana waana saameyn bay nagu yeelanaysaa marka waxaan jeclaan lahay in dowladdu ay xoogga saarto si kalluumaysatada looga caawiyo dadkan illegal fisherka la yidhaaho oo badda iska xadahaya illegal fisherka burcadda badda in laga joojiyo oo dadka masaakiinta ah oo kalluumaysatada ah ay u helaan maaragtay ay u suurageliso inay nolol maalmeedkooda si xaragale ugala soo baxaan baddi waa qani wax fiican baa yaal midda kale in loo sameeyo tababaro iyo maaragtay horumarin lagu barahayo waxyaalaha kalluumaysiga casriga ah inkastoo uusan marna istaagin boobka lagu hayo biyaha Soomaaliya haddana kalluumaysatadu waa kuwa ku hawlan wax soo saarka dhanka badda kuna kalsoon shaqada ay kala soo baxaan nolol maalmeedkooda inkastoo kalluumaysatadu ay ku hawlan yihiin wax soo saarka badda haddana caqabadaha haysta waa mid aan la soo koobi karin xilliyada qayb ka mid ah haday nasiib u yeeshaan inay helaan kalluun badan ma helaan suuq fiican oo ay u iibgeeyaan iyo qaboojiyaal ay ku keediyaan xilliga la joogo ma badna balse haddii xataa uu soo bato cid qaadato oo dibadda geysa ma jiraan meesha ku kulmaya marka waxaa loo baahan yahay suuq geeyin caam oo international waayo waxa kan hadday dadka sahilin garab maamulka ka helin wax u soconaya ma jiraan marka waxaa loo baahan yahay maamulka inuu qaldan yahay moodaa systemka waayo waxaa la subiya talaagada loo baahan yahay waxaa la rabaa qiimo macquula dadka laga qaado haddii kale wax horumar la gaari maayo magacayga cabdixakiin maxamuud maxamed waxaan ku noolahay boosaaso waxaan ka shaqeeyaa kalluumaysiga haddana waxaa laga gudbaya xilligii xagaaga waxaa loo gudbaya xilligii badfuranka oo kalluunka uu badnaa kalluunka waxaan ka keennay ceelaayo waxaan kasoo jilaabnaa ceelaayo waxaa la aadaa subaxii 7 waxaa la aadaa 4 habeenimo 4 habeenimo ayaan kalluumaysiga aadnaa waxaan kasoo noqonaa xilli waxaan kasoo noqonaa 10 subaxnimo kheyraadka baddu waa mid aan la soo koobi karin waana aqoon la isdheer yahay in la barto noocyada kala duwan ee kalluunka qaybo ka mid ah kalluumaystadu aqoon durugsan ayay u leeyihiin noocyada kala duwan ee kalluunka badda ku jira isla markaasina ay kala soo baxaan wuxuu kala baxaa dhowr nooc waxaa jira tawdiin mid yar u kala baxdaa tan weyn waxaa la siiyaa malin tan yarna waa 750 500 600 wixii lagu heshiiyay markaa shur waa jirta iyadana 100 80 70 wixii lagu heshiiyay سنوبته بقول سديتكم بقول كنتكم وحلو وشي وحي كلنا فردها أي قيمة وفرية ملي شبق السيو وحول لقي من محوها هدول له كورون هاي معاد قريب كوكليو أفر بقول لكم wax soo saarka qalabka kalluumaysi ee shirkadda xidig waa mid ay mahadiyeen kalluumaysatada dalka hay'adaha caalamiga ah intooda badan daneeyana inay gacan siiyaan kalluumaysatada waxa u sahlanaatay in ay dalka ka helaan shirkad ay heshiis la galaan dooyaha noocyadooda kala duwan halkaasi ka hirgelisa mas'uuliyiinta hay'adda FAO iyo shirkadda xidig kulamo ay wada qaateen waxay isku afgarteen in ay qalab doonyood looga baahan yahay in ay sameeyaan waana talaabo horumarineed oo ku aadan dhanka wax soo saarka iyo in dalka laga heli karo shirkado fulinaya danaha qalabka kalluumaysatada isla markaasina daboolaya baahida loo baahdo
dalabyadii ugu horreeyey ay hirgeliyeen injineerada shirkadda xidig waxay ahaayeen doonyaha yaryar ee kalluumaysiga oo muddo kooban lagu diyaariyey waxay ahayd mid si weyn u dhiirigelisay kalluumaysatada abuurtana shaqooyin badan qaybinta doonyahan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda puntland madaxda faw iyo madaxda shirkadda qalabka badda ee xidig waxaana loo qaybiyey doonyahaasi hadba sida loogu kala baahi weyn yahay dhanka kalluumaysiga heshiiskii mas-uuliyiinta labada dhinac ee faw iyo shirkadda xidig waxa uu noqday mid midho dhal ah dalabyadii horena waxa ay noqdeen mid wax weyn laga beddelay waxaana dalabkii labaad uu noqday ee dhinaca samaynta doonyaha in ay shirkaddu samayso noocyada waaweyn ee iska celin kara hirarka badda islamarkaasina lagu kalluumaysan karo iskudaygii samaynta doonyaha waaweyn ee shirkadda xidig waxa uu noqday mid midho dhal ah muddo kooban kadib waxaana la gaaray heerkii tijaabada nooca waaweyn waana mid ay waayo aragnimo iyo khibrad dheeraada ay u noqotay howlwadannada warshadaasi qalabka badda soo saarta ee xidig waxaana hamigooda uu gaarsiisan yahay in ay sameeyaan doonyaha xamuulka qaada ee mara dhinaca badweynta marka baahidu inay jirto waan ogeyn laakiin khibrad ma aanan lahayn ilaahay mahadis hadda khibrad nagu filan baan helay dad oo aqoon dheeraada u leh baanu keensannay waxa weeye dad noocii loo baahdaba samayn karaan keennay oo technician ah marka hadda waxaanu ku noqonnay dee khubara ma garatay hadda waxaan ku haminaynaaba inaan markab samayno iyo doon maaragtay daway wax ka keentaa kadib markii shirkaddu ay samayso doonyaha kala duwan waxaa loo dalbaa wiishash awoodu leh in ay qaadaan iyo gaadiid si loo geeyo dhinaca badda loona hubiyo wax soo saarka shirkadda xidig inuu yahay mid laysku hadlayn karo 10.3 waa doon qaada ilaa 60 waxaana loo dhammaystiray qalabkii qaboojiyayaasha iyo kaydkii kalluunka 8.3 waa nooc kale oo iyaduna lagu guulaystay in ay sameeyaan injineerada shirkadda waxaana ay taagan yihiin heer tijaabo ah mas-uuliyiinta shirkaddaasi ayaa waxay ka hadleen habka tijaabada ay u marinayaan qalabka kala duwan ee shirkaddaasi xidig ay ku guulaysatay in ay soo saarto maanta waxaanu halkan u nimid inaanu tijaabino doon nooc cusub ah oo 8.3 ah dherarkeedu yahay ama 8.3 oo ah fiberglass doontaas oo ay samaysay hirgelisay hay-adda faw ayna maalgelisay hay-adda norway waxaa la rabaa waa naqshad cusub iyo doon kaloo iyaduna ah 10.3 ama 10.3 oo iyaduna ka weyntan loogu talagalay inay qaado tallaagadeedu ilaa 60 ilaa iyo 60 iyo bar kalluun qabowsan ama barafkiisa wata marka waa laba nooc oo cusub weeye waxaa la rabaa in la tijaabsho qaab socodkooda iyo isu dheelitiraantooda iyo culayskooda intaba in la tijaabshaa la rabaa haddii lagu guulaysto marka loo bogo waxaa la rabaa in lagu beeriyo naqshadihii hore oo hore loo samayn jiray oo warshadu samayn jirtay warshadii hore waxay samayn jirtay volve oo ahaa 8.5 ama 8.5 iyo kuwa yaryar oo afdheer ah iyo leela calaawi marka kuwaana lagu beerinayaa naqshadahan cusub oo kalluumaystada aan jecelnahay inay ka faa'iidaysto oo la helo doon weyn oo wax fiican u qaadi kartana ay helaan qofkii doonaya qofkii rabana uu doon kale oo dhexdhexaada oo tii leela calaawidii iyo afdheertiina ka weyn walbihiina ka yar in la sameeyo marka qofba naqshadu rabo marka kalluumaystadii inay kaga faa'iidaystaan
aad baan waxaan u rajaynaynaa in lagu guulaysto oo kalluumaysataduna ay aad uga faa'iidaysan doonto haddii alla ima maadaama baddeenu ay tahay bad hodan ku ah kalluunka marka in la helo noocyo kala duwan oo dadka kalluumaysatada looga faa'iideeyo iyo naqshado kala duwan marka naqshadooda naqshadooda cusub waxaa noo keentay FAO marka waxaa la rabaa marka in hadda dadkii la baro runtii saaka waxaan jeclahay inaan anna ku daro qaybta hadda xaaji hadlayay qayb technical runtii doomahan waxaan soo bilownay sanadkii 2014 bilihii u dambeeyey bishii December laakiin hadda tan aan ka shaqeynayna maanta hadda la tijaabinay iyo mid kaloo isbuuci hore la tijaabinay labadooda waxay qaateen 7 bilood marka 7daas bilood waxa weeye shaqo aan marna kala istaag lahayn oo maaragtay intaa mar walba dib wax loo saxayay oo dadkii raggii naqshada soo sameeyeen ay runtii ay maalin walba sabab ka siinayeen oo nacaawinayeen kadib wax aad u qurux badan soo baxay hadda doonta isbuuci hore markii soo tijaabiyay anigu waan hubnaa laakiin runtii waxaan dareemayaa wax aad u cajiibsan baa soo baxay maantana tan baa iyadana tijaabo kala istaagayaan marka waxyaabaha aan ku talagalnay waxaa ka mid ah wixii outcome ka soo baxaa oo maaragtay tijaabadaas wixii ka soo marka laga reebo maalgelinta deeq-bixiyayaasha caalamiga ah mas-uuliyiinta shirkadda qalabka badda ee xidig dhankoodu sida ay noo sheegeen waxay horay u qaadeen in ay kalluumaysatada dhiirigeliyaan doonyana loo sameeyo deynna lagu siiyo balse tallaabadaasi caqabad ku noqotay in ay fuliyaan dhinaca kalluumaysatadu sida ay noo sheegeen mas-uuliyiinta shirkaddaasi waa isku daynay waana samaynay waxaan u malaynayaa lacagta shirkadda hadda ka maqan oo deynta uga maqan oo kalluumaysatada qabaan ilaahay unbaa xisaabi kara waa si aan u dhiirigelinno qof walba waxaan samayn jirnay wuxuu hayaan ka qaadi jirnay waxaan odhan jirnay waa kuu samaynaynaa soo shaqee lacagta noo keen laakiin ceeb baa timidoo horta waagii hore oo dowladdu jiri jirtay bangiga dadka u gadi jiray bangigu marka doontaas hadduu qofku soo celin waayo doontaa laga xaraynhayaa dee dowlad baa jirtay
hadda waxa weeye markii aan dadkii deymihii ku siinay ayaa deyntii la soo celin waayay dadkii 80% ma soo celin deyntii taas marka caqabad badan bay nagu keentay oo de wixii dhaqaalihii waa wiiqday marka laakiin aad baan isugu daynay inaan garab galo kalluumaysatada oo ilaa hadda lacagaha iyaga ku maqan yihiin dalabka samaynta doonyaha shirkadda xidig waxay xiriir ganacsi la leedahay gobollada dalka waxaana si isku mid ah loogu qaadaa kalluumaysatada dalka Soomaaliya oo baahi weyn u qabay in ay dalkooda ku helaan qalabka badda ay u baahan yihiin shirkaduna ay ka haqabtirtay gaar ahaan hadda anaga xagga shaqadayada Somaliland waa ka socotaa dalabka makumeeka Puntland ilaa Somaliland waana laga soo dalbadaa doonyahan koonfur ilaa gaalkacyo koonfurta gaalkacyo iyo wixii la midana waana laga soo dalbaa hatta waxaanu geynay ilaa iyo ceeldheer iyaan geynay doonyo ay samaystay faw oo dadka u qaybinaysay anaga inta soo saaray u qaybinay oo dadka u geynay laakiin qarashkii waxa bixisay faw marka waana laga waa isku xirannahay oo qoladan waxa la wixii kalluumaysatahay warshadan way yaqaaneen doonyahan inay doonyo tayo leeyihiin marka si fiican baa ay nooga warqabaan oo soo dalbadaan wixii ay u baahdaan tallaabooyinka ay qaaday shirkaddu waxaa ka mid ah samaynta agabyo ay ka mid yihiin haamaha biyaha lagu kaydiyo oo noocyo kala duwan ah xilliyadii hore dalabkooduna ahaa mid laga keeno waddamada ay Soomaaliya xiriirka ganacsi ay la leeyihiin gaar ahaan waddamada isu taga Imaaraadka Carabta balse sanada kadib markii la ogaaday in shirkaddu qalabkan ay soo saarto tayadooduna ay yihiin kuwo wanaagsan suuqii iyo dalabyadii Imaaraadku waxa ay noqdeen kuwa soo afmeermay haamuhu iyagu waxa weeye waxay u qaybsan yihiin qaar guryaha la saarto oo afar fuustaqaad 5 fuustaqaad 10 fuustaqaad 15 20 25 30 iyo kuwa kasi waaweyn oo 40 50 boqol oo iyaga maartay ama isbitaalada ama maartay meelaha maartay maxaan ku rahaa hoteelada waaweyn nalooga qaato marka haamahaasna si fiican baa loo bartay haamahaas waa fiberglass waxay kaga fiican yihiin kuwa caaga hadday ka kala jabto hadeer baa sideeda laga dhigaya laakiin caaga ma la ribar garan karo mar haday wax gaaraan marka dadka way bartay mid kale caafimaad ahaan fiberglass-ka ayaa fiican oo kuwa caaga kaga fiican xagga tayada oo caafimaadka waxa la yiraahaa meelaha kulaylaha oga kuwa caaga uma fiicna caafimaadku way ku liigayaan marka agabyada waxa kamid ah haamahaas kamid ah waxa kamid ah noocyo intaasoo nooc oo ah sanduuqyadan barafka lagu rito oo loo yaqaan cool boxka oo intaasoo nooca kuwa xeebaha la dhigto oo ay maartay markii kalluunku yimaado lagu rito barafka lagu guro kuwa doonyaha la saaro oo iyagana maartay barafka lagu rido kuwa waxaan sameeynaa oo kale kuwa waaweyn oo warshadaha barafka sameeya aan u sameeynay oo xataa waxaan u sameeynay kuwii awal meeshii macdanta iyo ka samaysan jireen birta ay ka dhigi jireen shay bir ay ka dhigi jireen warshadu meesha barafka u soo saaraysa iyadoo fiberglass aan u sameeynay oo barafka la dhex gelin oo barafka soo saarayso oo aan jocoranayn aad baa loogu bogay oo loo bartay Allah